بش شعبان النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وحيده سفيري وحيتري ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله نبي محمد ما أركن isagoo uu kaga badan yahay bil soonkeeda Ramadaan hadii laga soo tago bisha Shacbaan uu ka soo badan yahay ma arkin ahadiis badan ku soo aroortay maalin ama laba maalin ama saddex maalin bis uu ka reebi jiray soon marka oo sax ah oo nusuus leh waliba markii nabiga la weydiiyay bisha Shacbaan maxaa saas dhan uu soomay markii la dhahay wuxuu yiri bishii acmaasha la bandhigi lahay waayo oo Ilaahay loo bandhigi lahay sanadkan dhan waxa sameysay إله الله بندقا أعماشا رفعنتها سدح نوع واي مد يومي لو قد بيو إلهي وحي ما أنت أسميس إله لو قد بيو سو كوك أدو مديس مد أسبوعي لو قد بيو أو أسبوع واحد سميس الله لو بندقا مد سنة كي لو قد بيو مد سنة كي لو قد بيو بش لو قد بيو وحوي شعبان كشعبان وي وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ساسوها حديثك أسامة waxaan jeclahay in amalkayga la bandhigo anoo sooman markii oo Ilaahay subhanahu acmaashada marka waxa lagu qatamiyo fiirina waa la shaabadeyna meel la dhigaa shacbaan walba lagu shaabadeyna meel laga dhigaa qiyaamaha hadii la gaaro malafkaaga farta laga saara akhrisan lagu leeyahay iqra kitaabak waxa sanadka sameysana meesha ugu qoranta marka qatin weeye sanadka wixii aad sameysay عملك وجود إلين بالرمضان بلاواني مقتهي أو سنة كلا كتحميسو مركا آذو النبي عليه الصلاة والسلام بشان شعبان وسوم الجري هدي لبرو عملك سواجبك مركي أدقارتو سهل وكون قراءة خفك مركا أو مكثر آد أبدي قراءة القرآن في شهر شعبان هذا آد أبدي سيد وحاشك كوجرين بش رمضان أو واجب مركي لقال القرآن كاقي نسي لبلاد ماي إسلام مركا سادنا هدي بش شعبان آد أو سونتيد بش رمضان أو واجب مركي كوسو قارو سهل وكون غناء شامك أنا تاس نبيك أمة تسي إسقانا كو بلاوي وحان مركي اسكو برارو جنينا إن آدي آد أو صون بشان شعبان قرآن كان آد لو أخري ما دام سلفك شهر القراء إلي جرين بش شعبان نبيك عليه الصلاة والسلام عائشة وحيده سفيري وحيتري ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله نبي محمد ما أركن isagoo uu kaga badan yahay bil soonkeeda Ramadaan hadii laga soo tago bisha Shacbaan uu ka soo badan yahay ma arkin ahadiis badan ku soo aroortay maalin ama laba maalin ama saddex maalin bis uu ka reebi jiray soon marka oo sax ah oo nusuus leh waliba markii nabiga la weydiiyay bisha Shacbaan maxaa saas dhan uu soomay markii la dhahay wuxuu yiri